soo dhawaada asxaabta sharafta leh meel walba aad joogtaan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar channelka like share iyo comment intaba ha nooga iloobnina haddaad horey noola sii joogtana share iyo commentiga noogu dadaal arrin ayaan caawa inay wadaa waa arrin la yaab leh aad la yaabi doontaan arrintaani waxa ay ka dhacday dalka Ingiriiska waa gabar yar oo gabdhaha hadda soo kacaya ah oo 15 jirka meelahaas ah gabadha waxay la nooleed hooyadeed iyo nin hooyadeed qaba gabadha aabaheed iyo hooyadeed maysan isqabin laakiin waxa jirtay in hooyadeed uu nin qabay gabadhaana ay nin kale u dhashay gabadha ilmaha ay dhashay ee kale ee ninka kale u dhashay ayuu aad iyo aad moodaa inuu ka xigo ninkaani oo uu iska dhigayo inuu u yahay aabe oo sida ilmahaas oo kale ayuu u laxa jecle uu uga muujiyaa maamadii waa allow sahale way aamintay oo waxay isdhahday ninkan gabadhan aabaheed oo kale weeye marka way ku aamintay wax shakiya may ka qabto ilaa iyo intuu ilmaha la soo koraysa gabadha waxaad moodaa inuu ilmaha ka jeclaa uu si gooni ah uu ilmaha ugu xigsan jiray ilmihiisana wuu jeclaa laakiin ayada waxaad moodaa inuu si gooni ah uu u sii jeclaa saxaabay waxa dhacday gabadhii markay iskuulka aado in ay ninkan aabaha adeerka u ah oo aan aabaheed ahayn uu gabadha iskuulka ka soo wado gabadhii wuxuu baray wax adi jacayl iyo waxaasoo baray iyo in nin iyo naag jiraan in guur iyo waxaas la sameeyo waxaas ayuu baray gabadhii yartaaheed gabadhii alheedka alle waxaan ma taqaano ma fahanto hooyadeed waxay ahayd dadka ayadoo iska ganacsada gabadha oo marna guriga ayay imaan jirtay marna way safri jirtay oo meelaha safarka ayay aadi jirtay waxa dhacday markaasi in gabadha markay baxday ama ay aaday maamadii markay safar aaday gabadhii ayaa guriga ku soo hartay gabadhii markay guriga ku soo hartay baa waxa dhacday in uu ninkii gabadhii markay soo qaangaartay oo soo weynaatay uu wuxuu baray wax nin iyo naag la dhaho sidii ayuuna ugu sheekeeyay gabadhii uu soo jiitay wuxuu u sheegay in nin iyo naag jiraan in la isguursado insaan la yeelo adiga waxyaabo xun oo sharciga ka baxsan ayuu gabadhii baray gabadhii markuu baray baa maamadiina ay maqan tahay gabadhii way qaangaartay way soo weynaatay caadadii ayaa ku dhacday inanay noqotay way baaluqday kadib waxa dhacday asxaabay in maamadii safar ku maqan markasta oo ay baxdo sida gabadha laga soo wariyay way markasta oo ay maamadu baxdo waxay u tahay naag guriga u joogto maamada markay joogtana gabadhu waxay u tahay gabadheedii oo maamadu waxba ma ka sii oga gabadhii waxa dhacday marka maamadii inay inta soo baxday maalin maalmaha kamid ah gabadhii inay xanuunsatay oo jiratay gabadhii markay xanuunsatay gabadhii dhakhtar la geeyay dhakhtarkii markii la geeyay baa lagu yiri maamadii ayaa lagu yiri gabadhaada uur ayay leedahay markii lagu yiri maamada way yaabtay gabadhii ayay wareysatay oo ku tiri hooy waxaan intee ka imaadeen maxaa dhacay maxaad iigu waxaan intee ka yimaan habartiina shoog ay qaad way naxday gabadhii hadda maxay tiri hooy aniga aabaasaan yeelay aabe dhahdaa hadda ayada aabe ay soo bartay aabe ku soo ababisay waxay ku soo bartay inuu aabaheed yahay inkastoo san ajnabi ka ahayn laakiin ayada waxay bartay way ku tarabiyeysay inuu aabaheed yahay laakiin waxay tiri hooy aniga aabaasaan yeelay maamadii
way yaabtay way qaracantay way balanbashay markaasay waxay tiri gabadha baaba been abuur ka sameynayso ninkeyga waxaan ma sameyn karo nabaja ay bisoo istaagtay waxay tiri naayaa waxaan uurkan cidii ku yeeshay waa inaad ii sheegtaa ama aysan ahayn waa inaad aan ku dhoofiyaayo meel aadan weligaa arkin waa inaan ku geeyaa maamadii waxaa dhacday gabadhii markay sidaas tirtiri hooyo aniga ama idil ama idaa gabadhaadii ahay laakiin aabe ayaa sidaan iyo rumayso ama rumaysan asagii wuxuu soo istaagay ma gabadheydii aniga aan jeclaa ma gabadheydii aan ilmaha ka jeclaa miyaa maanta saas i dhahday miyaa ilmihii isku kala dirtay aniga iyo adiga madaxa isku kala gelisay hadda gabadhaadaa raacaysaay oo aad leedahay waxaa gabadheedaan la xigsanayay anigu wax aan sameeyay iyo waxaan waxeeyay midna malahan maamadii waxaa dhacday gabadhii markay aamini weysay inay gabadhii ay wado oo geyso ay Soomaaliya u dirto hooyadeed oo degan meel Soomaaliya ka mid ah oo sidii la sheegay baadiye ah ayay gabadhii u dirtay gabadhii markay u dirtay gabar iska caruur ahayd waxaas ayadu ma sii oga si ay meele wax ay ka abilgareysato ama ay soo baxday ay ku soo noqotana may oga way baxday gabadhii adiga halkaas ay geysay waxay tiri tan waa tii ceebayn lahayd Allah ilaahay waa inaan gaal shiri ma dhihi jira waa inaan ka ridaay dhahday marka gabadhii waday maamadii way soo hartay gabadhii waxaa la yiri markay adiga baadiyihii ay geysay gabadhii way umushay wiilay dhashay ilaahay wuu kala keenay wiilkii markay dhashay ba ayadu waxay ku tiri ayadu waxay ugu sheekaysay oo maamadii gabadha markay geenaysay ku tiri gabadhan wiil aan u dhisayo hooyadeeda ku tiri wiil baan u guuriyay wiilkiina uu ka dhintay marka أنا هذا أورا إلى هاي أديها كل جوكتو أديها عيدا هان أيام كو كان أكتر أنا هكذاش ماما دي مصي فيرين أو ما يسنسير راعين مركز سدي أي إسكاجا دافته قبل على حال شكل يعني إنكم بدين ويل هذا الشيء ويل كي مركز هذا الشيء ويصا قبل هذا نينكالي أي جورسدي ninkii wuu dhoofa ayada ma dhoofin ninkii aa dhoofay Mareykan ayuu aaday Mareykan markuu aaday gabadhiisii xaaskiisii iyo ilmihiisii uu u soo dacwooday waliba ayada oo gabadh ay u dhashay laba gabdhood oo asagu ka dhoofay uu u soo dacwooday kay dhashay iyo labadii ay ninka u dhashay wuu waday Mareykan uu geeyay Mareykan ay dajiyay reerkii barwaaqay ku nool yihiin ayada hooyadeed lama maqashin karo hooyadii way maqashay inay gabadhii baxday ay Mareykan iyo halkaas aaday markay baxday hadda waxaa jirto in aysan gabadhiina hooyadeed la hadlin ayadoo la hadlin ay Mareykan dhowr sano iyo ilmo badan ay ku dhashay gabadhii iska dhaqmayso maamadiina hadda cuqubo ayaa iskaga dhacday waxaa dhacday in ilmaheedii ay kala gantaalmaan oo gaalada qaar ka raacaan oo ayadu hoog iyo balaambal ay noqoto gabadhiina ay halkaas iskaga joogto maadaama hooyadeed aysan waxba u qabin laakiin aysan dad xiriir ka dhaxeeyo ayadoo ay tiri maamada siday tiri ha isoo sheegan ha ila soo hadlin ay jirto marka waxaa dhacday in goor ayaan dhexe in ay maamadii dhimatay oo tii alla u timid gabadhiyo marka sidii u kala maqan oo u kala uqdadaysan cunugii hadda ay haysatay cunugeeda ilaa ay 7 sano 10 sano madaxa sii galiyay ninkii hooyadeed qaba ayaana is dhalay sida la sheegay ayaga dhalay ayaana asaga dhalay marka sheekadan waxaan idinku soo gudbinayaa oo aan inkula wadaagay waa sheeko aad iyo aad u xanuun badan laakiin hooyo kasto ay gabadhaada ha ku aaminin nin aan aabaheed ahayn waayo nin aan ilmaha ha loo baro ninkan gabar walba calafku wuu dhamaadaa waa la isfuraa ilmo waa la isku dhalaa weligeeda la noolaaja laakiin gabdhaha qaasatan gabdhaha ha loo baro ninkan inuu adeer u yahay oo uusan aabaheed ahayn waayo aabayaal saanaha jiri kara waxyaabo xun ay u sheegi karaan sida hadda gabadhaas oo kale oo maskaxda uga cunay
kumanaan hooyooyin ah jiro oo aamusan oo waxba sheegayna gabdhahoodana sidaas haddii la wada raac gabar walbana ay runta sheegi lahayd oo ay dhihi lahayd aabaas laakiin dumarka Soomaaliyeed waxaan kala dardaarmayaa ilmaha in ay u baraan ninkan inuu adeerkoodii yahay oo uusan dhalin aysan aabaheedu barin intaas ayaa in la wadaagaya asxaabay waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyowga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo like iyo share iyo commentigana hanaga hilmaaninina adiga bal fikradan maxay kula tahay sideesa u aragtaa hooyooyinka maxaad kula talin lahaydeen hooyooyinka gabdhaha u baraya ninka qaba oo aan aabahood ahayn in uu aabahood yahay aabahood ma ahan laakiin waa aabahood oo kale waayo ajaanibka ma ahan laakiin waa in loo baraa ninkan inuu adeer u yahay oo hooyadeed qaba ma ahan in uu dhalay oo aaba u yahay yaa loo barin intaas ayaan inkaga tagayaa waxaan leeyahay waa sidaas iyo مع السلامة سبسكرايب كالشانل كا يولي وشاي كومنتينا هنغا إلوبنين واتكم هنسنتهين داوشة الفيديو بلا أنتين بحبا مني وحين كاكتغا يا سيداس يو نبت قليل